سوغاي marka harkeysa ka soo tagay aan dhahay waa ka hadlaya صح horta dada waxay u dhahay waxa uga hadli lahaa marka harkeysa joogo waxay ahayd anigu waan xanuunsanaa صح ma awoodin inaan inta YouTube soo fariisto arrimahaas ka hadlo waa dareemi kartaan waxyaalo badan ay igu furnaa waan xanuunsanaa tan labaad bixitaankeygii iyo waxyaalahaas ayaan maxaa jiraa ku jiray ha oo qof safar waad ka dareemi kartaan oo magaaladiis u soo socdo magaalo kale ka soo tagay haddana problem ku furnaa inuu haleelayno inuu YouTube soo fariisto waxaan idin dhahay markaan tago Nairobi aan u soo hadli karaa waxay ahayd in idin sii dejiyo idin dareensiin inaan markaas caafimaad qabo Snapchat-kayga ka soo hadlay waxa arkay YouTuber aad iyo aad u badan oo arintayda ka soo hadlayo أنا ولا لذي ياتيهن كبر إبي وحي كسو هاللبو أنت وناق يحمان أو قصة هذا الشو أنا وأنا تعالى ولا لذي ياتيهن قد كي ياتيهن إذا كواحد إذا كواهي لكن يمد وحيات إذا كحمين أوجين واحد هيسن تهن يعني شكي أرنت ربط أمين أوجين أرنت ربط إني جونا أوجين أنا ولا لذي ياتيهن ما شنطنا أو قد شرو مرة بقرب كي ياتين أرنت عربتين إنها كهالو واحد هاي أرنت أنا إيوه wiilkii aan wada joogay horta intii arinta ogna way ogtahay intii aan ogeyn ana had inuu sheegayo ani rasmi ahaan iyo walaalkay Farxaan waan kala tagnay صح oo waa kala dhamaanay intaanteen wax kasta oo dhacay wax kasta ani isoo maray waxa ku ilooway wanaagi hore oo yaani na soo dhaxmaray ani wiilkaas ayaan ku iloobay wax ay la dhaho iyo wax afar laga la dhaho ma taalo tada iga sugay in aan soo caytamo aan wiilkaas salaameen caayo alxamdulillah horta ani waxa ka dhashtay dad aad iyo aad jecel waxaan leeyahay hooyo jecel waxaan leeyahay aabi jecel asxaabi jecel wiil iyo gabar bale familkayga marka ka soo tago waxaan leeyahay asxaabi jecel oo idinkii daabanayo kamid aad tihiin ha marka ma awoodi qof bidaadan in aan meel inta usoo fariistaayo way liiguma awaabeninba صح hooyadii markay dhilaysay liiga daadinayay leema barin qof iga weyn qof iga yar binaacayo waxa la bari qof walba oo aniga Soomaaliyeed ama qof walba aad binaadan inaan walaal ka dhigto respect gareeyo so xushmadaas liigu soo abaabiyo darteed ayaan ana qofna afligaadeeneen qofna aanan u xumeyneen aniga iyo Farxaan waan kala tagnay waan kala tagnay wax kasto dhacay ayadii xumaan igu sameeyay dib wanaag igu sameeyay ani waan kala tagnaan leeyahay wiilkaas Farxaan waan kala dhamaanay waan kala tagnay waa walaalkay waa wiil Soomaaliyeed waa wiil shalay calaf wadaagnay waa wiil shalay isku sanay عيش وضع عندين dadka ceeshka wada cunaa la dhahaa ceeshka ha ku qabto qof aad leeyahay seexatay wada jacayl ka dhaxay maanta xumaan ma u quuri kartid oo shar baby afka ku dhays maanta istu hore aniga gurigeyga joogo ayaa hadda ka hor video inta la wareejinay oo aan lamaanayaasha uga hadlayay marka videogaas waxa dhahay ana hata rasmi Allah ka dhigay qof aan jeclahay marka kala tagno ama idinka kala tagtiin ina soo caysiin qalad أنا يورت تاس يبصرتوا because ناقة لقيه بين قنانا قبل يميل كوي كل تجني على جميل عمل حسب هذا نفط هذا شرط مقطع أنا قلنا وش إذا أبغى أنا ورقص عض أنا قلت يدي سكون مش خلص أنا قلنا وش إذا يوحي يقرأ عنايو فهمت مركزتك بوركاس وذي وركاس رسمي هالكاس كسوحرة فيديو جن أي أوتم بيا وح عنك هالدونه arinta ani iyo wiilkii aan kala tagnay oo noloshayda hore ah waa kala dhamaanay Farxaan waan kala tagnay meel raac ma jira waa may waa ogeynaa id maqanayseen waa ogeynaa gabadhiina aan ahay waan ogahay in wixii soo gaaray ka damqateen laakiin saaceeta wax walba waxa lagu iloowa wanaagii hore ha iyo wijiga ha meel la joogtiin waan jecelahay waxaan ilaahay asxaabtayda qaaliga meel ba joogtiin love you